sinaan 4.5 wax miyaa laga bedelay 20 sano way qodada haweenka loogu soo ordaa ummadan oo nusaayid dhex fadhideen haween waa ahay laakiin 4.5 horta wax ka bedel adoon sinaan ba aqoonin sidee haween wax ugu raadisaa waxa laga waayay Soomaali siman waxa kugu daran dal dimuqraadiyada la dhahaa mucaarad iyo muxaafid waxay rabaan ha ahaadaan mudanayaasha cidii rabtana neesta ha u bixisaane xildhibaanada golaha shacabka aan u aqaan waxa lagu leeyahay dal dimuqraadiya nahay 4 sano doorasho ka dhacda 4.5 dimuqraadiya nus lagu noqdaa hay'ata waa waxaan dhacay inta markaan ka gudbo aqligeena yarka markaa iyo aqoon wuxuu ilaahay u nagaliyay hanooga cayaarin fadlan waa codsana inaan walo ka cayaarin aqligeena yarka waxaan soo jeedinayaa aqoon diin iyo aqoon maadi intii la doono lahaada inta kale ee Soomaali weyn maanta wakiilada shacabka golaha shacabka ayaa matala annaga kuwa maanta u taagan ayaga iyo annagaba sidii dalkan doorasho waqtigeeda ku dhacdo looga qaban lahaa isku mid baan ka nahay arimaas guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaana u xil saaran sida aan soo sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo waxa ii muuqda markaa ukumo 4 ukumood aan u aqaanaa qodob ka mid ah ka hadlayno ukumo soo hormaray aawa dooradii dhashay digaagadii dhashay ukumahan aaway iyaga laga rabaa inay noo cadeeyaan haddii ay guddoonkeena yihiin iyo haddii guddiga warka soo hormaray 2016 haddii dalkani ay ku qaban waayaan doorashada taalla guddiga madaxa bannaan 27 ka bacdi laguma yooyootamaayo meesha waa ka baxaa 2016 sidii ay noqdeen bay noqonayaan annagana lagu soo celinaa annaga sheegayna dalkan meesha uu ka aadayo waayo maanta annagayna saaran tahay mar haddii early election laga hadlaayo maanta aan joognaa inaan early election laga hadlo oo xukuumadda soo gudbisay oo golayaashu maray oo madaxweynuhu saxiixay 2020 marka xilligan aan joogno waxaan u baahannahay guddiga inay wax sheegaan axsaab mucaarad iyo muxaafid iyo saamiley aan aniga ka mid Khadiija Maxamed Diiriye cidii la doono hal la aadeen inaan u dejino meel ummadda aan u sheegayno in oo markaas 27 kadib after guddiga madaxa bannaan markaas aan ka hadli karnaa marka qoonda haween matalaad banaadir kuraas Somaliland iyo wixii la doono oo kale in laga hadlo way astaysan tahay kuraasta 2016 la aastay anigu waxaan qabaa mudane guddoomiye xilligan markaa kuraasta haweenka haday waan ka hadlay horta waxaan rabaa mudane guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo mudanayaasha Zainab Maxamed Caamir walaashay iyo aniga horta beeshinka way ka noqotay Zainab ma qabto aniga iyada hal mar aan meeshin wada galaynaa beeshinka isku maraan galaynaa kuraasta marxaladii ay soo martay iyo inta habraacyo ayaa guddoonkeena soo qoray si qurux badan loo soo qoray 2000 ee carta waxa ku qoran 245 aan isdhagaysano waxaan hadayti ugu hadlaayay aan u naqdinaayay 224 shirba inaan cadeen 245 baa ku qoran xeerka idin hor yaal 245 kuraastu ma ahayn waxay ahayd 200 oo rag iyo 25 dumar haween